السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خيارتا أنو جعلنا هايو كسو دوادا وركا أن الكاينو الصومالي يا عالم ككالي halkani daawada waa hagaag TV hadii ay ku tahay marka kugu horreysay soo booqato channelka fadlan subscribe share like iyo comment hagaag ku bilaabay ee gudoomiye Ciro Cambaarey dabagalay iyo Musabbixi fadhi ay isku yimaadeen xildhibaanada cusub oo hadda bilaabmay xildhibaan Khadiija oo isu sharaxday kursiga Fahad Yaasin doonayo maxkamadda sare ee dalka oo ku dhawaaqday kursiga Fahad Yaasin akhyaarteeda aanu jecelnahay intaas oo qodobada warkayga ugu dookaroon iminkii haatan u diyaar garooba qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan ku bilaabay sida horudhaca wararkeed ku maqleyseen gudoomiyaha xisbiga wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa canaan kala duldhacay taliyaha ciidanka bilayska iyo xukuumadda Musabbixi Cabdi taasoo ku eedeeyay inay ku gafeen sharciga iyo xuquuqda muwaadiniinta reer Somaliland Cabdiraxmaan Ciro waxa uu sheegay in haddii taliyuhu shaqadiisa gudan kari waayo inuu iska dhigo shaarka dowladda xidhana shaarka shacabka wuxuu nasiib darrada ku tilmaamay in taliyadan oo ciidan qaran hogaaminaya uu iskaga hadlo waxaan looga fadhiyin Cabdiraxmaan Ciro waxa kale uu raaciyay in madaxweynaha xilka ummaddu u dhiibtay inuu sidoo doono ka yeelayo dhigii shalay xildhibaanada aqalka sare iyo golaha shacabka ay ku yeesheen xarunta Villa Hargeysa ee magaalada Muqdisho ayaa waxa buuq lagu dhawaaday inay gacanta iskula tagaan qaar ka mid ah xildhibaanada cusub kulanka waxa lagu ansixiyay jadwalka doorashada gudoonka labada aqal wuxuuna dhacay xilli laga cabsi qabay in xildhibaanada taageersan Villa Soomaaliya isku dayaan inay joojiyaan si doorashada dib loogu dhigo taasi oo aan dhicin xildhibaanada ayaa si aqlabiyad leh ku ansixiyay habraaca doorashada gudoonka baarlamaanka kadibna waxa la maqlay jug culus oo ahayd hoobiyayaal lagu weeraray xarunta baarlamaanka ee Villa Hargeysa ugu yaraan 7 ruux oo u badan askarta goobta ku sugnayd ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen weerarka inta uu socday buuqa ayaa waxa gudoonka baarlamaanka u tagay xildhibaan Cabdulaahi Aadan Kulanejiis oo laga soo doortay Galmudug gaar ahaan degmada Balanballe kulana uu muuqday mid diidan muddada uu soo bandhigay guddiga baarlamaanka u qaabilsan doorashada gudoonka oo loo asteeyay in midda aqalka sare ay dhacdo 26 Abriil maalinta xigtana la doorto gudoonka golaha shacabka inta uu xildhibaan Cabdulaahi Kulane la hadlayay gudoonka ku meel gaarka ayaa waxa si garab istaagay oo ay hadal isla dhaafeen xildhibaan Maxamed Salaad waxa la arkayay xildhibaan Cabdulaahi Kulanejiis oo ku xanaaqay Mahad Salaad isla markaana ay labada mudane ku sigteen inay soo gacan qaadaan waxyar kadib waxa dhinaca kale baarlamaanka ka soo kacay xildhibaan Cabdishakuur Cali Mire oo si toos ah u abaaray Mahad Salaad lama maqlin karin hadallada dhexmaray labada mudane balse xaalkoodu waxa uu gaaray in la kala qabto xildhibaan Khadiija Maxamed Diiri ayaa shaacisay inay tahay murashax u taagan kursiga gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya kursiga xildhibaanad Khadiija ay ku dhawaaqday inay u tartamayso ayaa waxa la rumaysan yahay inuu yahay midka uu sida aadka ah u doonayo Fahad Yaasin oo wali aanu helin shahaadada xildhibaannimada Maxamed Diiri ayaa qoraal ay soo saartay boggeeda Facebook waxa ku shaacisay murashaxnimadeeda iyadoo tiri kadib markaan tala soo jeedinta saaxiibadayda siyaasadeed aan ku talownay aniga dareensan in hore loo dhaqaajiyay doorashada golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya caawa laga bilaabo soo bandhigaya murashaxnimadayda gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee 11aad doorashada baarlamaanka 11aad ayay sidoo kale waxay ka mid ahayd murashaxiinta aadka lagu saadaarinayay gudoomiye ku-xigeenka koowaad iyadoo codadka ay heshay uu shubtay Cabdiwali Ibraahim Muude dhinaca kale waxa xilkan isugu soo taagay xildhibaan Maxamed Cabdulqaadir Jeego iyo xildhibaan Maxamed Cali Cumar Caanug oo soo shaaciyay inay u taagan yihiin tartanka gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka maxkamadda sare ee dalka ayaa maanta si rasmi ah u guda gashay dhageysiga dacwadda uu gudbiyay la taliyaha amniga qaranka Fahad Yaasin taasoo la xiriirtay kursiga loo doortay ee Hob Eber State 6 kadib markii uu hakiyay fiid dooda ayaa goordhow bilaabatay waxaana hadda socota dhageysiga dooda u dhaxaysa labada dhinac iyadoo la filayo in kadib maxkamaddu ay soo saarto go'aankeeda hoolka ay ka socoto dooda ayaa mid firaaq ah waxaana la xadeeyay dadka qaybgalaya dhageysiga dacwadda oo ah mid xasaasi ah marka laga reebo qaranada difaaciya Fahad Yaasin kuwa u doodaya guddiga fiid iyo gudoonka maxkamadda sare ee dalka
gudoomiyaha maxkamadda sare Baasha Yuusuf Axmed ayaa soo xiray fadhiga maanta wuxuuna sheegay in maxkamaddu dib u soo saari doonto qaraar ku aadan kursigaasi. Maxkamaddu qaraar bay ka soo saari doontaa insha Allah tacaala. Haddana maxkamadda waa inoo xirantaa ayuu yiri gudoomiyuhu. Maxkamadda sare ayaa 10kii bishan Abriil xaqiijisay in qabatay gal dacwadeed uu soo gudbiyay la taliyaha dhanka amniga ee Farmaajo Fahad Daahir Axmed Fahad Yaasiin. Fahad ayaa ka dacwoonaya guddiga doorashooyinka heer federaal ee FID oo sharci darro ku tilmaamay doorashada kursiga uu Fahad ka soo qaatay Beledweyne oo ah Hob Eber 86. Maxkamadan waxaa gudoomiyaha ka ah Baasha Yuusuf Axmed oo ah nin aad ugu dhow nidaamka Farmaajo. Siyaasiyiin badan oo kiiskan isha ku haya ayaa qaba tuhun ah in maxkamaddu fasaxi doonto kursigaas. Hase yeeshee garyaqaanka guud ee dowladda oo xilligaas qabsaday maalmo dheeraad ah uu soo xaqiijiyo hanaanka loo maray doorashada kursiga Fahad Yaasiin ayaa Sabtidii shalay maxkamadda ku jawaab celiyay qoraalka xafiiska garyaqaanka guud ee dowladda u diray maxkamadda sare. Waxaa lagu sheegay inuu aaminsan yahay in guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal iyo hakinta kursiga Hob Eber 86 u mareen habraaci saxda ahaa ee lagu talagalay habraaca fulinta doorashada dadban. Xafiiska ayaa sidoo kale difaacay awoodda iyo sharciyada guddiga doorashada wuxuuna sheegay in guddiga ay awoodiisu tahay inuu mas'uul ka yahay guud ahaan kormeerka hanaanka doorashada iyo xaqiijinta inay isku mid yihiin uu dhacdo hanaanka doorashada iyo dabagalka fulinta hanaankii lagu heshiiyay ee qabsoomida doorashooyinka Soomaaliya. Ciyaarteeda aanu jecelnahay intaas waxaan ku soo gabagabaynaynaa war waxaan ka haynay dalka gudihiisa iyo dibadda inteeda kale. Tan iyo kulanti dambe u baahtaagay ku dhaafaysaa nabadgelyo.